soo dhawaada khayrta mar kale iyo barnaamijkeeni electronicska maanta waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaan AND gateska AND OR NAND XOR NOR XNOR NOT intaas oo logic ayaa jirto marka logic gates waxaa laga wadaa AND-ka iyo OR-ka iyo waxyaabahaas barnaamijkan maanta isticmaali doono wuxuu ku saabsan yahay PCD binary decimal counter to 7-segment display. Binary counter kan oo ah 4-bit binary-ga ayaan waxaan rabnaa in aan bedelno 7-segment display. 7-segment display waxaa laga wadaa toddoba layer ayaa ku dhex jiro LCD-gan display-gan haddii aan dhahno hell library 7-segment display waa kana waxay leedahay toddobadaas 1 2 3 4 5 6 toddobadaas LED ayaa ku dhex jirta sidaas ayaa laga wadaa 7-segment display. Toddobadaas LED kasta input ayuu leeyahay. Inputkaas markii uu high yahay LED-gan wuu shidmaa. Tusaale ahaan LED-gan wuu koreeya haddaan rabno inaan shidno waxaan shidi doonaa qaybtaas oo keliya inputkaas ayaan high ka dhigaynaa uu koreeya. Haddii aan rabno LED-ga dhinacan xigo midig kore waxaan sameynaynaa inputkaas ayaan high ka dhigaynaa kadib LED-gan ayaa shidmaya sidaas ayay shaashadan hal inta keliya ka iftiimaysaa. sidaas ayay u shaqeysaa marka waxay u baahan tahay 7 fiilo 1 2 3 4 5 6 toddobadaas ayay u baahan tahay. toddobadii fiilo waxaan u isticmaalnay inay inta ka soo baxaan OR gates yeeshaan 1 2 3 4 5 6 toddoba OR gate ayaan halkan ku isticmaalnay. waxaan kaloo isticmaalnay AND gates internal AND gates iyo NOT gates. marka haddii aan tusaale yar idin siiyo waxay tahay hadda intaan u fiilayaashadan 0 ayaa qoran binary counter-kana 0 ayuu sheegaa. haddii inta 0 ay tahay 0 0 0 waa 0 haddii 1 0 0 ay tahay waa hal markaas halkii ayaa shidan. haddii ay tahay 0 1 0 waa 2 waa number 2 number 2diina inta ayay nagu qoran tahay binarysiis waxaa loo xisaabiyaa 1 2 4 8 16 32 64 128 saas ayay u socdaa. waa 1 2 4 8 16 ama 16 32 sidaas ayay u socdaa 64 128 waa tiro kasta laba jibaarkeeda macnaha ayadii oo lagu daray ayadii. tusaale ahaan 2 haddii lagu daro 2 waa 4 4 haddii lagu daro 4 waa 8 8 haddii lagu daro 8 16 ayay sii noqonaysaa 16 ku dar 32 32 ku dar 64 64 ku dar 128 binary sidaas ayuu u socdaa. marka si aan tiro walbana waa laga sameyn karaa number kasta ayaa laga qori karaa. hadda tusaale ahaan anaga ilaa eber ilaa 9 ayaan tirinaynaa numberadana sidaa ogtihiin eber ilaa 9 waaye wixii ka dambeeya waa iyagu isku soo laalaabtay. tusaale ahaan 10 oo kale ama 11 waa hal iyo hal soo laabtay 10kana waa ebertii iyo halkii oo isku soo laabtay. marka numberada waxay ka bilaabdaan eber waxayna ku dhamaadaan 9. sidaas darteeda binary-ga hadda aan design garaynay wuxuu tirin doonaa eber ilaa 9. haddii marka ebertii aan ka bilaabno ebertii waa tanaa wax input yaasha dhan waa eber. haddii aan rabno hal inaan qorno waxaan leenahay 1 haddii aan rabno inaan 2 qorno waxaan leenahay 2 haddii aan rabno inaan 3 qorno 3 inta nooguma jirto so 2 plus 1 3 ayay noqonaysaa. haddii aan rabno 4 inaan qorno 4 ayaa noo diyaarsan. haddii aan rabno 5 inaan qornona 4 plus 1 haddii aan rabno 6 inaan qorno
waa 4 plus 2 haddii aan rabno 7 inaan qorno 4 plus 2 plus 1 haddii aan rabno 8 inaan qorno 8 uga noo diyaarsan tahay haddii aan rabno 9 inaan qorno marka inta ayaan kusoo koobinaa qaybtan waxaan marka wax yar u laaban doonaa and geedka siduu u shaqeeyo iyo orka sidai u shaqeeyaan iyo notka maadaama saddexdaas hadda aan isticmaalnay saddexdaas ayaan wax yar qaadi doonaa waxaan ka bilaabi doonaa notka not gate waxaa laga wadaa wax alla wixii inputka uu yahay in uu outputka ka dhigo wax kasoo horjeeda tusaale ahaan waxaan leenahay waxaan haysanaa output iyo input waxaan leenahay outputka hadda LED-gan waa 0 waxaan 0 ka dhigay inputka ayaa 1 ah inputka high haddii uu yahay outputka 0 ayuu noqonaya markii la isticmaalayo not gate-ka haddii marka inputkan 0 ka dhigno outputka high ayuu noqonayaa waa iska soo horjeedaan macnaha wax alla wax inputka yahay maahane wax kasoo horjeeda ka dhig waa macnaheed not halkaas ayaan gudbaynaa and ayaan soo qaadanaynaa andiga waxaa laga wadaa waxaan wax alla wixii inputkiisa ah tusaale ahaan andkan input waxaan ka dhignay inuu leeyahay laba meel oo input ah waxaan leenahay labada meel oo inputka ah ayaan u sameynaynaa sidaan oo kaleeto waxaan u sameynaynaa output waxaan leenahay outputka okay and waxaa laga wadaa haddii input 1 and input 2 labadaas inputba inputka koobaad iyo inputka labaadba haddii ay yihiin hal ama high inuu outputka noqdo high tusaale ahaan haddii inputka koobaad aan high ka dhigno wax isbedele ma lahan LED-gi weli off waaye macnaha outputka waxba kama imaanin haddii marka aan rabno in outputka wax ka keeno waxaan sameynaynaa inputka labaad ayaan haddana high ka dhigaynaa then outputka hal ayuu noqday ama high ayuu noqday ama wushid marka and waxaa laga wadaa haddii inputkan A aan ku magacaabno kanna B aan ku magacaabno tusaale ahaan andka waxaa laga wadaa marka A and B haddii ay true noqdaan labadanba waa logic gateska true iyo false ayay ku shaqeeyaan haddii labadanba ay true noqdaan true waxaa laga wadaa hal iyo hal then outputka wuxuu noqonayaa hal haddii midkood uu yahay low outputka low ayuu noqonaya maxaa yeelay ma buuxinayo shuruuddii lagu xiray oo ah in labadaba ay true yihiin and waa in inputyaashiisa dhan ay true noqdaan kadib ayaa outputkiisa true noqonaya markii inputyaasha high yihiin gudub marka waxaan gudbaynaa orka waa sidaan isagana waxaan u yeelaynaa inuu leeyahay laba input labada input ayaan u sameynaynaa waxaan leenahay input 1 waxaan kaloo leenahay input 2 waxaan leenahay output ayaan u sameynaynaa marka waxaan leenahay isaga wuxuu ku shaqeeyaa marka A or B I don't care midkood raba ha noqdo A ama B midkood raba ha noqdo haddii mid ka mida labadoodan ay high noqdaan ama true noqoto ama 1 noqoto outputka 1 ayuu noqonaya tusaale ahaan haddii outputka inputka koobaad aan ka dhigno high outputka high ayuu noqonaya haddii inputka labaad aan high ka dhigno outputka high ayuu noqonaya haddaan labadaba high ka dhigno high ayuu ahaanayaa just like that marka micnaheedu waxay tahay notka waxa loo isticmaalaa markii inputka aad rabtid inuu outputka noqdo wax ka guddisan inputka and waxaa loo isticmaalaa markii aad leedahay waa in kan iyo kanba ay high noqdaan
kadib outputka high ayuu noqonaya. Tusaale ahaan waxaa leedahay haddii iridda ay furan tahay daaqadana furan tahay guriga uu furan yahay, tusaale ahaan outputka open ayuu noqonaya. marka andka sidaas loo isticmaalaa, orka sidaas loo isticmaalaa. marka haddii combinationkooda aan isku keenkeeno waxyaabahan waxaan ka samayn karnaa logic wax macnaha socon kara. tusaale ahaan in aan fasirno binarygan u gedirno hexadecimal, I mean 7 segment display, in aan u bedelno decimal caadi ah, hex digital display in aan u bedelno, LED matrix in aan wax kusoo qorqorno, in aan even CPU ka design garayno oon ka dhisno microcontroller yar ama processor inaan ka samayno and iyo or iyo nan iyo not. Logic gateska waxa dhan oo hadda microcontrollerada, processorada, CPU-da dhammaantood waxaa ku jiro nan or and logic gates waxyaaba loo yaqaan. haddii marka aan wax yar tusaale ahaan yar aan idintuso, andka wax weyn ma aha, waxa uu ka samaysan yahay transistorka. haddii tusaale ahaan hadda waxaan sameynaya and transistor ayaa sameynaya and transistorkan waxaa leenahay wuxuu ujeedaa south another transistor kale transistorkan kalena wuxuu ujeedaa south. waxaa leenahay power ayaan u baahannahay, power waxaa leenahay powerka ayaan ku xiranaa. alright, waxaan u baahannahay laba transistor ayaan sameynay, waxaan inaan sameynay and moogtahay. marka waxaa leenahay this will be output, marka waxaa leenahay haddii aan switch raadino ma jiro button, another button kale leenahay. alright, tusaale ahaan hadda andka wuu iska shidmay maxaa yeelay LED-ga wuu iska shidmay maxaa yeelay transistorka p-type ayaan isticmaalaynay, n-type ayaan ka dhigaynaa, kana waxaan ka dhigaynaa n-type. alright, marka hadda andkan wuxuu lahaa laba input, labadan input ayuu lahaa. andka hadda aan aniga sameeyey laba input ayuu leeyahay, outputna wuu leeyahay, waa kana outputkiisa. marka andkii hore waxaan ku dhaqaanay haddii mid kamid uu shidan yahay switch u baahnay, sorry switch waan iska bedelayaa, inputyadaas oo kale ayaan isticmaalayaa. waxaan leeyahay input waxaa leeyahay tusaale ahaan kan haddaan shido outputka weli zero sida kan moogta, kan kore haddaan shido outputka weli zero ah. haddii labadaba aan shido kan output ayuu yeeshay, kana output ayuu yeeshay. marka andka laguu sheegayo wax kale ma ahan, waa wax transistor laga sameeyey, waana logic gates and very simple way, si sahlan ayaa loo sameyn karaa. tusaale ahaan haddii laba transistor aa haysatid, hal transistorkan outputkiisa ayaa transistorkaaga kusii xiraysaa, kadib macnaheedu waxay tahay inta haddii uu high yahay transistorka markuu on yahay currentigii inta ayuu soo dhex marayaa, meeshan ayuu ku istaagaa, weli ma sii gudbaa maxaa yeelay transistorkan kale ayaa off ah. marka wuxuu u baahan yahay in on laga dhigo, markaas ayuu currentigiisii gudbinayaa, halkaas ayaana LED ka shidmaa. marka and wax magic ah maahan, waa transistor ayuu ka samaysan yahay. sidaas darteeda microcontrollerada
processorada, CPU-da, computerada, waxaas dhan waxay ku shaqeeyaan waa transistor. Hadda tusaale ahaan CPU-da qaar processorada oo kuwa waaweyn ee computerada waxaa laga yaabaa inay ku jiraan millions, qaarkood trillions inay ku jiraan xabo oo transistor ah. marka haddii transistor isku geeyo oo loo order gareeyo si logic ah and iyo or ahaan, waxaad samayn kartaa CPU ama microcontroller ama projector yar sida kan oo kale u yar oo ah binary decoder, inuu binary ku decode gareeyo oo kaaga dhigo decimal, tusaale ahaan 7 segment displaygan inuu kugu soo bandhigo value-ga ama numberka binary ahaanta lagu siiyey, tusaale ahaan 1110 waa 7 sidaas oo kaleeto. cashirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay, waxaana oga hadlaynay haddaan mar kale dib idinkugu laabto waa logic gateska iyo waxyaabaha loo isticmaali karo iyo sida ay u shaqeeyaan not gate iyo and gate iyo or gate. weliba anagoo tusaale oo additional bonus ah idin siiyey and-ka sida uu u samaysan yahay internally, in uu ka dhex samaysan yahay gudihiisa transistor iyo transistor, then outputkii. So haddii aad and ina dhistid sidaan oo kale ayaa u dhisi kartaa laba transistor kadib high high high. haddii midkood dansan yahay outputka waa 0, just like that. So wax oo magical ah maaha, wax oo intisraacada ma ahan, waa wax ku saabsan logic. So marka haddii aad isku dayda inaad fahantid waa very simple, waana wax luuqad ku salaysan. xataa haddii aan fiirino and-ka iyo or-ka, and waxaa laga wadaa and haddii A input and B input labadaba haddii ay high yihiin outputka high ayuu noqonaa. That's it. A input and P input, then output will be high. haddii inputkan oo high yahay, inputka labaad high inuu noqdo qasab waaye si outputka uu high u noqdo. That is the high condition of AND gates. Or waxaa laga wadaa I don't care, kan ama kan kii high noqda waxba igama gelin, midkood waa inuu high noqdo. So haddii mid ka mid a labadan input uu high yahay, orka outputkiisa high ayuu noqonaa. Not-ka waxaa waaye wax alla wixii inta ah haddii high ay tahay outputka low ayay noqonaysaa. haddii inputka low uu yahay outputka high ayuu noqonaya. intaas ayuu ku gabagabeynaya barnaamijkan. waxaan idin rajaynayaa maalin wanaagsan.